adiga Cabdiwakiil kima halkan fadhina magaciisi muunadii geeska way waxaan leenahay kiisaga subscribe-tii iyo wixii bad keena sadaqadii Soomaalidu isku tagaan soo buuhiya walaal marka control-ku kale marayaan waxa lagu yiraahdaa magaca dadna magac buu sheegtaa Saalax oo kale magacyada karayaan dadna waa laga bedelaa ku Maxamed Makaro Muhammad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدمان داوديش وسلامية وعبد الوكيل شنو كداوان سنة ومولد جيسكا ما أنت برنامجكم مع أصوح مرتي إيجو إبراهيم عبد الورن إبراهيم كسودو ويلي كسودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب عبد الوكيل يوتشا جارهم بتشانل كمولد جيسكو حد لنا ويلكم هل كني ما مركب موريسان كصوم مقنطونا أما مركب قدام بيسي عبد الوكيل ولا الوندوهاي ودوده هاي برنامج كوس كفتني سؤاله اسك قصل بدن اسك قراحه واحد كميد هاي waxaan ku ordkii adawaran sheekadii adawaran nooga sheekay adawaran horta magacan adawaran marka la runta la sheego bulsho ay bixisay adduunkana wax la qaato wax bulsho ku siis ayaa qurux badan magacan adawaran si kale ugu bixin habeenkii libaaxi oo raacada soo baxsaday dadka fiidka loo ka habeenkii ugu horeysay arkaysay todobada wax seexato habeenkaas magacaasi bahay wax kale wax dhacdo ma taqaana habeenkaas kili baan daawada war adawarankan waxa uu haysto ma taqaana gabadha ormada libaax cunay ninkeedii dadka qaar adigu nin baad moodibay dadka qaar islaam bay moodayeen qoftu nin baan moodayo waxa la gabadha la cunay waa kan u baroranayo midhawateedii may saasoo ku baxay magacaasi adawaran bulshada siisay naanaysid hore super Soomaali baheed maanta waxaan qaatay oo kaga kalsoonahay oo boqolkiiba boqol aan sita magaca bulshada siisay waana adawaran ma sha Allah bulshaduna waxa leeyahay ugu raacsan adawaranka lafta kaama diidayo okay su'aal kale waa qaatay jawaabteeda waxaad noo sheegtaa marka luqada ma aragtay imka luqada aad ugu badan aad ku hadasho ma taqaanaa waa Soomaaliga waa luqada imka Soomaaliga marka laga yimaado luqada Itoobiyaanka romada Soomaaliga alcalaali way walaalo adiga Cabdiwakiil kima halkan fadhina magaciisi muunadii geeska way waxaan leenahay kiisaga subscribe-tii iyo wixii bad keena sadaqadii Soomaalidu isku tagaan soo buuhiya walaalayaal haduu aad wax ugu dhacay taqaanaa luqadaas luqad igaga adag ma arkin English waan ku hadli karaa Soomaali waan ku hadli karaa laakiin luqadaas uma igu daran waxaan ka aqaan luqada ma taqaanaa salaamno taas waa Itoobiyaanki waa tisise taas uma ka aqaan salaamno ninkaas kale naagtan iyadu waa salaamnesh saas loo kala macallinka wala gabadh salaamno baan taas waa luqad gaar ah laakiin Soomaaligeenu si kasta dadku waxay yiraahdaan maxad oramada seeynta waxa dhacday waxa soo raacay bas dabeetana baska boor oroosa ku qornaayo qurxun aad baa loo qurxiyay mugti dabeetana farta ku qoranto shuwa oromo ana Soomaali haysta akhri baan siraahda mise oroosku way soo kari waayay fartuwaana Soomaali akhriisna mayso farta Soomaalida ta oromada iyo afart inta way sabahan wana isku yarayo laakiin maxay ku baaday xagga halqaadista iyo higaada ay kala duwan laakiin quraal ahaan wasla Soomaaliga laakiin shaqal yar gacan bay leedahay ma taqaana afka adduunka ugu hodansan ma taqaana tan English waan maqaan wabeen afka Soomaaliga waa luqada kaliya ee hadii imika tan dadka oromadaan sameeyno ay yiraahdaan maxad oromada u canjisaan waa luqadeena waxaan aaminsanahay luqad kale inaan lahayn waayo luqadeena waa dhan kasta ha gasho luqada si kasta aad u qaatid kuma dhigaan ka madnaani marka saas oo marka Carabiga laga yimaado marka la qaadayo luqada af Soomaaligu waa imtixaanada ugu adag inagu waxaan noqonaa imtixaanada luqadaha Ingiriiska iyo waxa soo noqonaa laakiin luqada Soomaaliga waa ugu adag bal imtixaanada horta ma taqaanaa professorada luqadeenu waxay ku canta ma taqaanaa shay baa 10 magac yeelanaya 10 qof baa waxa ku kala sheegayaan shaygi 10 shay ku kala sheegay 10 magac ku kala sheegay shaygi markaas horta sina uu adeegay macallinka saxay markuu maanta eegay shayga isagu wuxuu yaqaan haduu garan waayo khaldaya laga yaabaa isagoo la kaashada qof garanaya mooyaane inuu khaldaba laga yaabaa laakiin luqadeena waa luqad hodana dhalinyarada iyo dadka ma aragtay luqadeena ka tagay xaleen waa luqadeena ku bixino war dad kale ayaa le waxaan ku hadlinaynaa inuu faanka moodino teena aynu sharaf iyo cis iyo karaamo ku leenahay teena soo qaadno luqadeena Soomaaliga Soomaha luqadeena Soomaaliga waa hodan waxa noo sheegtaa qofka oromiga ama Soomaaliga marka luqada oromada baranayo bal iyada wax nooga taabto ajaanibka inoo dhow luqadeena Soomaaliga barta waa Itoobiyaanka ama Xabasha ha noqdo ama Soomaali ha noqdo iyaga inoo dhow
marka iyaga inta badan daan aragnay iyaga Soomaaliya ku hadlaya marka control-ka kale ay marayaan waxa lagu yiraahdaa magaca deetana magac buu sheegtaa Saalax oo kale magacyada karayaan deetana waa laga bedelaa ku dhahay Maxamed ma karo Muhammad ma muslim baa tamsa gaal muslim marka dhinacan loo eego marka dhinacan loo eego iyagu Soomaaliga markii way baranayaan oo ku hadlayaan oo toodiba way ilaawayaan oo tii Soomaaliga caadi ah ku hadlayaan laakiin waxa galmay mataqaanaa haddaan siraahday ma ka baro wallahi ka taan galigu karin maayo adaas ka dhacday laakiin luqad la barto luqadda ugu adag waa Soomaaliga way dictionary anna waxaan aaminsan luqadda la barto Soomaaliga ugu fudud ilaa waa ku dhashaan adag waad ku dhalatay oo ku fududahay laakiin marka qof shay ay tahay oo ma fududa way dictionary ma laha luqadda Soomaaliga wasabta keenta in ay adag marka la cadana yiri waxaan dhameeyay af Soomaaliga waan dhameeyay dadna hal soo kaxay ku yaro tadaba jira la saagstaaji مثلا يقول لي صاف صومالي مضى منها عجا وحكتي حسنا مودي كبيس وصار ده كي ربع عرّي سوينا كبيس وديتي فصار يقول هذا ما أنت بتقول إذا عجا وحكتي ومعني إنه ها عرب وتكفاك وحكي بعد اللغة الصومالية ما تكوبيس ما كوبين بقى ما تكوبين والدوار طبعا لكن أنا مركز أنا هيك ما عرفت لغتها بالإنجليش كصومالي وحنقول عربي نوح حاصل أنا قوي في ذي تحسن لكن شو كلمة ما يتحسنا وعادي بيه هنا كعبسين هنا dhammaan barnaamijkii halkaas uu naga eegyahay barnaamijka waxa marti igu ahaa walaalkeen Cabdiwaran Ibrahim dhammaan waan salaamay asxaabta sidaayo nabadgelyo channel aan maanta soo fadhiisto channelkii ugu horeeyay ugu magac wanaagsanaa Muunada Geeska wuxuu astaan u yahay anigu qarannimadeena marka anigu soo eego marka waxaad leenahay walaalayaal ha moogaanina waanu idin hagar baxayna idin kuna noo hiliyo oo noogu hiliya subscribe السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته